shakhsiyadu diidantay ha maxaad ku diidantay dhaqankayaga male af Soomaalina isku af Soomaalina minni dhabaysa waxaan magac dhabayaa waa ninka mu'aamarada la wada Muusabix wallahi billahi tallahi Muusabixana gaboosa ka jecel maanta wuxuu rumaysan yahay maanta aniga wadday marka halkan ka weeraraya iyo gaboos oo munaafaqadaynaya waa gaboos hadalka aad baad ugu codcelisay wax gaar ah ka dhaxeeyo ina dermay waa ninku siiraanya ka yaabay ma siiraayo aanu siiraayo siiraayo wali maxaa gaboos ma si shakhsiyadu diidantay ha maxaad ku diidantay dhaqankayaga male af Soomaalina isku af Soomaalina minni af Soomaaligu waa gaar laakiin waa Somaliland dhaqan isku ciyaarta batorkan ciyaar anagu baba aqaan ta laga ciyaaro waa waadi Somaliland oo dictatora oo qarankiisa u shaqeeyay dhakhtarnimadiisa oo isna maha oo anigu dhakhtarnimadiisa waa dhakhtar qualified wasiirka arrimaha gudaha soo noqday laba goor buu soo noqday dastuurkiisa aniga muusan ka hadlaya way maxaad gaboos ku diidantay gaboos ma sidii waxa ku muuse habeen ka caawa wuxuu arkay inuu gaboosan isteexu yahay ee anigu ana isteexu ahay wallahi billahi tallahi Muusabixana gaboosa ka jecel taas aanu rumaysanaya marka qof u nasteex iyo qof wanaagiisa jecel buugu necbi Muuse kuwa imika gaboosaha iyo kuwa yaacyaacay waxba uu qabanayaayo doorasho la soo horeysanaya ta madaxtooyada horeysa oo ta kala dambe waxa akhriyaya maalin dhow iyo isaga iyo iyaga haday daacad isagu gaboosa ka saaro raggan kale waxa sheegaya waxa gaboosa magac dhabaysa waxaan magac dhabayaa waa ninka mu'aamarada la wada Muusabix mu'aamaraduna waxay ka bilaabantay maxaad uga jeedaa la wada mu'aamarada waa gudoomiye urur barwaaqay dadku ku ogyiin oo tartamo ka horna muxuu ahaa waa muwaadin xaq buu leeyahay inuu tartamo muxuu dhibay u geystay gaboos ee adigu aad ku duraysa shirweynihii wadani shirweynihii wadani ka hor wuxuu ahaa wadani Soma wuxuu ku biiray markii ururkiisii magaciisa garanayay ururkiisii ummaddu wuxuu sheegay inuu taageerayaasha ku wareejiyay wadani uu ku wareejiyay laakiin xubin kama noqon buu yiri kumaan biirin buu yiri golo dhexe maan gelin buu yiri guddi fulineed maan gelin hoggaan kama noqon adeer gacaliba ahna muxuu ka yiri intuu isa soo dhex taagay wuxuu ku yiri iska daa wax kale hadda ku guuleysataan doorashada oo kursiga heshaan laydin ogolaan maayo inaad ku fadhiisataan sidaa buu ka yidhi mise kama oran maanta isagii baa leh waan doonayaa arrintan mar timidna waxa weeye xisbiga waxaa lagu wareejiyey cirka wuxuu ku wareejiyey xirsi isagaa fikirkaa qaatay weliba waxaa xirsi fursadda siiyey cabdilqaadir jirde oo ahaa ninka ciro haddii laga dhaxlayo xisbiga la filayay inuu noqonayo ninka ku xiga ciro ee xisbiga gudoomiye ka noqon lahaa isagii baa ka tanaasulay isna gudoomiyenimadii dee taasi xirsi oo xisbiga la soo sameeyay fursad u noqotay tii baa raqiil ka dayeen waa la cararo Musabixa loo tegay waa halka gaboosa aan anigu ka diidanahay fikraddu waxay noqotay garxad ururada soo horeysay waxaanu meesha ka saaraynaa Faysal iyo Ciraba garxadisna urur kale u samaysanaya ururka iyagana waad noo soo saaraysaa adiguna muddo kordhiso ilaahayba inaga sareeye taasuu Muusabix qaatay horta maalintuu jabay oo maalintuu taa qaatay Muusabix waanu ku jabay doonaa wada doontaayo isagoo dhiig sokeeye faraha loo geliyay ayaad indhahaaga oo shan arki doontaa gaboosa ka saara maalinta